وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صنائع المعروف تقيء ميتة السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله كلنا كهذا كلا لا هذا أنتوا وحنوا باهنا ما ركتاني إنك إلهي وباهن إلهي إنك وباهن دين الإسلام كان إنك وباهن كلونك noloshiisa ilaahay wuxuu dhexgeliyay waa biyaha dhexdooda weeyaan hadduu biyaha ka dhex baxo uu dhimanayaa bani aadamkana cizigooga sharaftooda aakhiradooda adduunyadooda meeshay ku hagaagaysa ilaahay waxuu ka yeelay waa diin hadday diinta islaamka dadku ay ka dhex baxaanna way dhimanayaan marka kulligan innaka u baahan ilaahay innaka u baahan salaadan tukanay innaka u baahan diinta inaan maqalo oon isku baraarujino oon ka wada hadallo innaka u baahan rasuulkeeni udgoona calayhi salaatu wassalaam ibn mascuud radiyallahu canhu ayuu ku yiri quraanka dusheeda ku akhri waa nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa ardaydiisii ka mida ka dalbanaya quraanka inuu dushiisa ku akhriyo marka cabdulaahi ibn mascuud radiyallahu canhu wuxuu yidhi aqra'u calayka wa calayka unzil yaa rasuul allah maadaan dushaada quraanka ku akhriyaa quraanku aduuba kugu soo degay waxau nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabay innii uxibu an asmacahu min hayri quraanka waxaan jecelahay inaan dadka kale ka dhageystay dusheeda ku akhri buu nabigu calayhi salaatu wasalaam quraankuna waa wacdiga ilaahay waa bayaanka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu khalqigiisa u jeediyey weeyaan haddii quraanka dushaada lagu akhriyo ama quraanka adigoo aada akhrisanaysid ama meel ilaahay wacdigiisa lagu hayo aada maqasho waxaad ogaataa qur-aanku waa wacdiga ilaahay waa wacdi waa bayaan waa balaaq hada balaagun linnaas waliyundaruu bihi waliyaclamuu annamaa huwa ilaahun waaxidun وليذكر أولو الألباب هذا بيان للناس قرآنك وبيان وموعظة markaan quraanka akhrisanaysid ama quraanka dushaada lagu akhrinayo waxaad ogaataa bayaanka ilaahay uu khalqiga u jeediyey ayaa adiga dushaada lagu akhrinaya marka nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam waxa ugu jawaabay ardaygiisii inni uxibu an asmacahu min hayri waxaan jecelahay quraanka dadka kale inaan ka dhageysto ka maqle dusheeda ku akhri buu nabigu calayhi salaatu wassalaam faqaratu calayhi suurata an-nisaa suuradaasaan dushiisa ku akhriyay buu nabiga dushiisa ilaa laga gaadho aayadaas fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida markaan halkaa uu maraayo
ayuu nebigu yihi xasbuka al'aan hadda qur-aanka halkii aan rabay aada gaadhsiisee intaasaa igu filana jooji buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa kugu filaatay intaas deedna saxaabigii wuxuu yihi nebiga ayaan xaggiisa daymooday waaba nebi maxamed sal allahu alayh wasalam oo labadiisaa indhood maaragtaan ilintu ay ka daadanayso inaku maanta qur-aankii waan maqlaynaa wacdigii waan maqlaynaa laakiin isbedelkii uu yaryahay aayad qur-aanoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dushiisa lagu joojiyey ayaa nebi maxamed uu la ilmeeyey fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin xaalku sidee buu ahaan doonaa maalinka qiyaamaha markaan ummad walba aan keenno iyada iyo nebigeedii oo maragga ku furaya inuu diintii risaaladii uu gaadhsiiyey adigana markhaati aan kuu soo joojinno xaalo aada ku marag furi doonto ummadaada inaad diintii aada gaadhsiisay ana nebigeenu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ayuu tadabburayay qur-aanka ayuu ka fikirayay qur-aanka markuu akhrisanayana uu ooyi jiray oo caaisha radia allaahu canha waa tii tidhi salaata leylka markuu nebigu tukanayo rakacad keliyuu nebigu ku tukanaya suuratu lbaqara iyo ala cimraan iyo suuratu nisaa sarajooga dheeridiisa ayaa nebigu lugihiisu ay bararayeen deedna markaabay ku tiri lima tasnacu hada yaa rasuula allah yaa rasuulallah maxaa sida naftaada aada ugu kalifaysaa ilaahay adiga macsuum buu kaa dhigo dembigii horena waa kaa dhaafay kii dambena waa kaa ilaaliye markaabuu nebigu ugu jawaabo wuxuu ku yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura miyaanan jeclayn inaan ahaado aniguna addoon rabbigiisa ku shukrinayo ku mahadnaqaya aayad ka hadlaysa ilaahay tansiihdiisa hadduu marana nebigu ilaahay buu nasahayey aayad ka hadlaysa maaragtaane jannada hadduu dul marana jannadu ilaahay weydiisanayey aayad naarta ka hadlaysa hadduu nebigu iskortaagana naarta ayuu ilaahay ka magan galayey aayad ka hadlaysa ilaahay weynigiisa hadduu marana ilaahay buu nebigu weyneynaya calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a salaadii subax ayaa la gaadhay sunnaha nebigu sal alla alay slam aqaladiisu kusoo tukani jiray inaku maanta salaada farad iyo sunnaba waxaan la imanay maaragtane waa masaajidii aqaladeeni nasiib maxaan u yeelnay salaada sunnada salaad sunna ah uu qofku tukada buu nebigu xadiid ku yidhi salaadu qofku aqalkiisa ku tukanaya ayaa ugu fadli badan ilaa salaada faradka mooyaane salaada sunnayaasha sunnaha ugu fadli badan waa sunnahee waa sunnaha lagu tukado xaafadaha faradka mooyaane faraa'idana masaajida loogu talagalay sunnadana waxaa fadli badan sunnaha aqalka lagu tukanayo si aqalkii uu noqdaa aqal masaajidka cilaaqa la leh hadda aqalka salaada lagu dhex tukanayo oo qur-aanka lagu dhex akhrisanayo oo dadka aqalka jooga mar walba ilaahay ay aqalka ku dhex xasuusanayaan oo aakhirada ay aqalkooga ku dhex hadal haynayaan aqalkaasi wuxuu noqonayaa kalmasjid laakiin aqaladii haddii aanan ilaahay lagu dhex xusaynin salaadna aan lagu dhex tukanaynin diinna aan lagu baranaynin waxau noqonayaa aqalkaasi qabri banaanka dul yaaluu noqonayaa laa tajcaluu buyuutakum maqaabira aqaladiina qabuuraha ka dhigina buu nebigu yihi sal alla alay wasalam imaam atirmidi raxmat ullaahi calayhi wuxuu yihi aqalka haddaanan salaad lagu dhex tukanaynin salaadee laga wadaa marka haweenkuna farad iyo sunnaba inay aqalada ku tukadaan baa u fadli badan raggana faraa'idana inay masaajida ku gutaan sunnaha ay tukanayaanna sunnaha ugu fadli badan buu nebigu yihi waa kay aqalka dhexdiisa maaragtaan ay la tegayaan aqalka kusoo tukanayaan haddaan aqalka salaadba lagu dhex tukanaynin qur-aanna lagu dhex akhrisanaynin diinna aan lagu dhex baranaynin ilaahay tabaaraka wa tacaalana aan lagu dhex xasuusanaynin aqalkaasi wuxuu yihi imaamkaasi waa qabri banaanka dusheeda ka dhisan dadka ku dhex jirana waa dad dhintay la mid yihiin buu yihi meesha laga dhintaa laga noolaada ma aha jirkan dhimashadu runtu waa ta qalbiga weeyaan qalbiga marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sunnaha wuxuu kusoo tukanaya aqaladiisa salaada faraa'idana wuxuu la iman jiray masaajidka deedna bilaal baa nebiga u tago ku yidhi yaa rasuul allah salaadii baa taagan oo jamci way ku sugayaan
markaa buu nebigu soo kacay calayhi salaatu wasalaam isagoo indhihiisa ay lilmadu ka daadanayso meeshuu nebigu ku sujuudayena ay ilintu ay qoysay daadna markaa buu nebigu ku yidhi yaa bilaal xalay toole aayadahan qur'aanka ayaa dusheeda ku soo degay waylun liman qara'ahaa walam yatafakar buu nebigu yihi sal alla alay wasalam aayadaha ninka akhriya ee aanan tadabburin ee aanan ka fikirin ee maskaxdiisa aanan ka shaqaysiinin uu hoogay buu nebigu yihi uuna khasaaray qofkaasi awaakhir suuratu ala cimraan soo ma ahayn أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا subxaanaka faqinaa cadaab annaar aayadahaasaa dusheeda kusoo degay buu nebigu xalay toole yidhi aayaduhu maxay ka warramayaan markaas ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waاnnahaar samaawaadka iyo araadiinta abuurkooda iyo habeenka iyo maalinta isgadaal maraya isbedelaya iskaxaynaya maalintiibaa yaa joogtay habeenkiibaa imanaya maalintiibaa tegaysa maalintiibaa imanaysa habeenkiibaa tegaya nolosha adduunka dhanba waa habeen iyo maalin isbedelaya bal wax u dhexeeya sheeg wax saddexaad ma jiraan waa habeen iyo maalin hadday habeentaas aad u noolaan lahaydna nebi maxamed baa kuu jideeyey sal allahu alay wasalam hadday maalin ay tahayna saaad maalintaa u gudan lahayd aad noloshaada u gudan lahayd nebi maxamed baa kuu jideeyey deedna samaawaadkan eeg ilaahay dushaada uu dhigay oo dhulka eeg oo khalqiga samaawaadka lagu dhex abuuray fiiri deedna ilaahay xasuuso yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda ilaahay bay xusayaan iyakoo taagan iyaka oo fadhiya iyaka oo jiifa oo maxay leeyihiin rabbanaa maa khalaqta hada baatila ilaahu cirkan iyo dhulkan iyo khalqigan dheeldheel umaad abuuran bay leeyihiin subxaanaka ilaahu xumaan adaa ka hufan nuqsaan adiga ayaa ka hufan ee faqinaa cadaab annaar ilaahu cadaabka naarta naga dheeray oo naga badbaadi bay ku ducaysanayaan 24 saacadood ee ku soo maraysa bal saacad walba hal saaco saacadiiba hal mar ilaahayna xasuuso aakhiradana xasuuso waad noolaan meeshaad ka noolaanaysid qalbiga noqona ogow meesha dadku ay ka dhintaan ama ay ka noolaadeen waa qalbiga marka natadabbar waa inaan ilaahay xasuusanaa mar walba afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka maysan fiirinayn baa ilaahay leeyahay mase qulubtooda ayaa qafilan oo qur-aanku muxuu ka warramayaa naba-u maa qablakum buu ka warramayaa waxalli wixii inaga horreeyey nebi aadan abuurkiisii ilaa joogadaada maanta adduunyada wixii dhacay buu qur-aanku ka warramayaa waalkhabaru maa bacdakum waxalli waxa adduunka inaga dambeeya dabadeed gadaasheenna iman doona ayuu qur-aanku ka warramayaa waalxukmu maa baynakum ininka dhexdiina buu nebigu leeyahay waxay aad xukun aad dhexdiinna uga baahnaydeen hadday tahay xaqa walaalka aad ku lahayd hadday tahay xaqa jaarkaaga aad ku lahayd hadday tahay xaqa aabbahaa kugu lahaa hadday tahay adigu xaqa waalidka aad ku lahayd hadday tahay mas-uulka raciyadda xaqa ay ku lahayd hadday tahay raciyaddu mas-uulka xaqa uu ku lahaa qur-aankaa waxaasoo dhan ba ka warramaya huwa alfaslu laysa bilhazli waa fasl waa xukum ilaahay xaggiisa ka yimid kaftan qur-aanku iyo dheeldheel ma galo akhriskiisii waa cibaado eegiddiisii waa cibaado ku dhaqankiisii waa cibaado barashadiisii waa cibaado bariddiisii waa cibaado fidintiisii waa cibaado xukunkiisii waa cibaado man camila bihi ujr ninka qur-aanka ku camal fala ajar baa ilaahay uga qoraya
ومن حكم به عدل نك قرآن كأمتك حكمنا وعدالة فلي ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن قال به صدق نك إلى القرآن كالسدا يري ربو شاقي ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم نك دتك أقوية حق قرآن كيدا والقرآن كهرانو ورشريعة دينا هم برنو وردين دينا هم عمل فلو وردين دينا هم دقنو وردين دينا أمدا هم برنو وردين تعدد كادي جيسا قرآن كدد بكادي جدد ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم نك دتك قرآن كحقي سأقوية طريق مستقيم كقول عيبة النبي صلى الله عليه وسلم marka quraanka ilaahay na siiyay ummadii quraanka ilaahay naga dhigay naga nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam oo keligii meel fadhiyo jibriil ag taagan yahay ayuu nabigu ka maqlay xagga samada shanqad sawd markaasuu argagaxay jibriil buu nabigu weydiiyay alayhi salaatu wasalaam jibriil baa ku yiri albaab samadu ay leedahay maanta la furay maanta ka horna albaabka lama furin samada malag baa ka soo daadagay maanta malagaasi maanta ka horna adduunyada muusan iman albaabkana maanta la furay malagaana maanta adduunka yimiday malagii baa nabiga salaam alayhi salaam markaasuu yidhi abshir binuurayni uutiitahuma yaa muxamed laba nuur baan kuu sidaayo ilaahay igu kaa soo dhiibay bishaaraysa baa lagu yidhi imisa nuur laba nuur لم يؤتهما نبي قبلك أذيك هرت النبي لبدا النور إلهي وسيء ونصيب يشين مجرم بلغو يري خواتم سورة البقرة وسورة الفاتحة لبدا عدود البقرة وقدم بيسا أما سورة البقرة أواخر كذا هي سورة الفاتحة واللبا آيات واللبا إلهي ونبي محمد وكسيي خزائن عرشك هو السيدة الله إنت الله فريب النبي قال له قصة صاري قرآن كريم كي ملائكته أي صوّدان آية لقد دبكيني بأن مرقاسة بيت العز لدقي ملك آية سجارة إنت نبي محمد وقوي مدي لبدا أوكيني أو كنا أبشر بنورين أوتيتهما بشاريسو لبا نور با إلهي ugu ka soo dhibo adiga lagu siiyay adiga horta nabi nasiib u yeeshay in la siiyana ma jirin waa labadee khawatim suurat al-baqara iyo suurat al-fatiha weeyaan xaraf kamida ilaahay baahidaada xaraf kamida ilaahay kuma weydiisatid khayr adduunyo khayr aakhira waxa doonaysid illa ilaahay waa ku aqbala ducada waa lagu siiyaba lagu yiri ku ducayso باهي ملهن باهي ملهن ملهن يا باهي وان بوحنا سوما هذا باهي دالو واكن كدو عيسو حد ملك لنده ugu taagay sanadkiiba dhowr kun baa jaamacada ka soo baxaysa diblomkan shahaadadan aad gosha lagu soo galiyay ilaahay ku dhaweyn mayso ogow ilaahay waxa ilaahay aad ugu dhawaanayso waa quraankaas waxa xaajadaada lagugu daboolay waa quraankaas waxa adduunyadaada iyo aakhiradaada kugu hagaagayso waa quraanka raac quraanku dad buu ka dhigay dad xaraf kamida baa nabiga lagu yiri ilaahay tabaaraka wa taala kuma baridid oo baahidaada ilaahay uguma sheegatid ilaa he wixii khayr adduunyo iyo khayr aakhiro aad ilaahay weydiisateed ku alla baraday labada xuruuftooda xaraf kamida aad ilaahay ku barido ilaahay ducada waa ka aqbal waa lagu siin nabiga lagu yiri sallallahu alayhi wa sallam balaaya soo socota ku ducayso suurada faatixada ilaahay ku bari noloshiba xiriiri kugu noqotay suurada ku bari ilaahay ku ducayso muraad baad leedahay
كدو عيسو أواخر سورة البقرة إلهي كويدي سباهي دادا الباب كإلهي قرع هقوصا إبقى قددك الزمن كان قوص بعد شبه طان قوصا نابا قول أنت أوصنان تكنا يي حبايي ما بيريان ويكون بيريان دعاء ستد صدحهم بدعاء مدو دعدا إما بلايك وصوص عطين لقاقا دبالو لقاقا الليحيو إما إن الدنيا نوحي الله عاد ويدي ستي إلهي عاد كسيو إما إن آخرك لقوقو دقو آخر لقوقو دقو دب لقوقو دقو فالقرآن كينا المركز دي بقول نقونينا إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا القرآن كينا برانينا القرآن كان تدبر يتفكر كو آخر سنينا صحابة الرسول رضي الله عنهم قرآن كاسا يكون راعين إمام بيكدكتين القرآن كإمام dhaqan hadday tahay cibaado hadday tahay akhlaaq hadday tahay tarbiyadda awlaadda hadday tahay sida mujtamaca loola dhaqmaya hadday tahay sida qoys loola dhaqmaya hadday tahay qur'aankaa bay raaceen iyo xadiista nabigeena sal allahu alay wasalam yatadabbaruun عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضه أدب القرآن كأفير سنجرة موقته مسكيت كان النبي عليه الصلاة والسلام وهابين سوق عليه ساعده الضمبة أمير إسقوة لأنه مسؤولة وأمدا كم مسؤولة وعبادتي فرائضها هيدنتو مال ساري ولي بكود دالايا إنه نوافشنا ولي مادو مسؤول هبانكي بحود هبانكي هدان سيحدنا حق إلهي يقول هابان ضيعيا مالكي هدان سيحدنا حق أمد يقول هيد بان ضيعيا بودي أمركي إلا أرجع عمر بن الخطاب ومسكيت كالنبي مركو فريستبا هردو دعا هردو دا أي الرديسة يا أمير المؤمنين واد شيء سيحبا اللي يقولي مركاسو هبانكي هدان سيحدو حق أمد يقول هيد بان ضيع حق إلهي يقول هابان ضيعيا لأن مؤمن كهابين كي إلهي بولا مناجودا إلهي بو بريا مالك هدان سيحدان أبو يدي حق يمد يقول هاي بان ضيعي بيدي مسؤول إلى هذا الحد عبادتي سحابينك إلى سنة يبوها هبين هذا كمد وصوق لمساجد كي نبينا صلى الله عليه وسلم وحوارك ير شابة وقيام الليل كي أتاقنا القرآن ككرو قادايا والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إلى لقى قال إن عذاب ربك لواقع إلهي ودارنا كورن دارتي مركي دعضي وحي لهي إن عذاب ربك لواقع آيات عمر مركو مغلبان ليدي قلكو كدعي الله قاضي أقل كان لقيي لباتن مالمول مدة كدوبو حنون صنابا ليدي حنونك سببت الله حنون صدين اللقم ورقبينه آيات قرآن كآيات قلبي ستابتي بالليدي عمر الفاروق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أي النبي قوي مدرسه أويا يا مالين يا أبا بكر ما أنت محل له يسوي شيء مركز سوري نبي الله صورة دنا كوكو دكتي لبدا آيات قدام بيساوي قوي نسبودي وأحبك كم يتقل لبدا آيات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مثقال ذرة وحيش بنادك وقبط وحا أقول يري أركته وخير انت قفك السماية مالك قيامها أبالك وهلي دونابا إلى هيدي انت إلا يقول الدنبي والشر قفك السماينا آخرا وهلي دونا ما ركتاني أبالك وهلي دونا أبي بكر الصديق وحا أوليه هي لبدنا هذا السورة وقدم بيسا
waxba kamay tegin ba nabi allah seen markaa ku badbaadaynaa markaa buu nabigu yidhi yaa abaa bakar والذي نفس محمد بيده إلهي بان كدارتي برسولك يدي الله نفت محمد أي قعنتي سكجرت أيان كدارتي لو لم تذنبوا حديد ذنبي بأوسن النقاد عين أو ذنبي كد عيو أنا أهين با لذهب الله بكم إلهي انتو أدوية إنك حلو إني قادو أيا إلهي وحا كان لها دون وحو إلهي كان لها أرنب دو الشيدة دنبي انتو دنبي كدعو اي دنبي سميان الهي دنبي داف اي ويديستان الهي دنبي او دافو كواسا الهي كان لها برسولك كو يدي يعني عبسدي markay ka badatay ayaa nabigu xadiistan ku akhrinaya bal siday marna ay naxariista ilaahay aysan uga quusan waxay adduunyada dusheeda ka arkaan oran aakhirada ka dhaxarkeen iyagu تابعين تبوها صلة ابن الأشيم رحمة الله عليه ننوحوها دادي سنتي ويناتي اعتزال بوسمي اعتزال وامحي يعني مجتمعي بكدح بحي عباد مركا وتفرقي مالن كينا الصيام حبين كينا القيام مالن كينا الصوم حبين كينا صلاة الليل مرقا ننا عذير وابا ويمدو كويري إن أنت يذيبان كسيي وانا كود سينا والله سوق قاضي مقالدي بالله كيني قبضي بالله مهريي مرقاسي لو نيك ونين عابد عباده بدن درنا ما هيستو مرقاسي لغو يدو قولكا حمامكا قالو ميدhe baa lagu yidhi dharkaa jadiidkana soo xidho markaasuu soo maydhay dharkiina uu soo xidhay cadarna uu soo marsaday gabadhii markaa caroosadii baa la yidhi waata qolkaa ku jirtee dee caroos baa tahay orodoo halkaa ku hoya baa lagu yidhi salafku habeenka ugu horeysa ee leylatu zafaaf waxaa hadyigooga ka mid ahayd inay gabadhuna weyse qabto uu ninkuna weyse qabo qolka caroosadu ay fadhidana markuu cariisku ugu galo inuu assalaamu calaykum markuu yidhaahdo inuu laba rakaco uu tujiyo iyada inagu sidaa ma samaynaa yaa haleelaba qola kaamera wadatayna haysatabe soo maahin de laa ilaaha illa allah wataan arkayna dhalinyar halkaa buuraha hoostooda taaganoo yaa leyti war zayigii islaamka un balmaan qaadana maxaa kuu diiday zayigii islaamka inaad cimaamad madaxa saaratid oo qamiis aad qaadatid maxaa kuu diiday sunnatu caada xataa caadadeennii waxaad moodaa inay maalinba maalinta ka dambayso ay ka sii dheeraanayna dhaqanka islaamka leylatu zafaaf saxaabada rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa laba rakacay iyuu ninku reerkiisa uu tujin jiray waxay ka dhigan tahay maanta laga bilaabaa mas-uuliyaddii aabbaha iyo hooyada saarnayd anaa kala soo wareegay noloshaada adduunyadaada iyo aakhiradaada anaa kuugu imaama ana waxaan diyaar u ahay bay ka dhigan tahay ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nebi maxamed inaanu kugu hogaamiye sida labadaa rakaca aad igu daba tukatay haddeetol aniga ii daba joog bay ka dhigan tahay sidaasay ka dhigan tahay le nebigu waa kii lahaa khayru الnisaa man idaa nadarta ilayha saradka waidaa amartaha aطaacadka waidaa gibta canha xafidatka fii nafsiha wamaa laka dumarka ta ugu khayr badan buu nebigu uhi waatee waata marka uu ninkaygu daymoodo ka farxisa buu rasuulku yidhi hadduu la hadlo hadal wanaagsan bay kula hadlaysaa hadduu eegana way ka farxinaysaa wax ka farxiyay kula hadlaysaa wax ka farxiyay maqashiinaysaa wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoonto way ilaalsan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya adduunya uu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi marka labada ragcadood ee sunnaha gabadha habeenkan la tujinayo waa hadyigii saxaabada waa hadyigii salafka waxay ka dhigan tahay
haddeeto la adiga ana ku imaama ana taacada ilaahay iyo taacada nabi maxamed baa kugu hogaamine sida salaada aan imaamka kugu ahaa maanta laga bilaabaa noloshaada aniga ku imaamay daba joogsan ka dhigan tahay hada marka salaada la tujiyo ayaa waxa sunnah halka fooda in la qabto fooda ducada lagu akhrinaya allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat alayha somahin khayra ma jubilat alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alayhi waxay ka dhigan tahay waxa ducada macnaheedu waa maxay ilaahu haween gabadhan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa sharkeedana waan ka magan galay sharka aad ku abuurtana waan ka magan galay halka fooda maxaa loo qabanayaa fooda waxa ku taalabay culimadu leeyihiin waa dhaakirada qofka bini aadanka xasuusta waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyada haddaad kala garan wada ka waran labada soo khatar ma wama min daabatin illa huwa aakhidun binasiyatiha lidhalika ilaahay quraanka wakilaha thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina aamanu dadka cibaadada ku koray ee salaada ku barbaaray ee masaajida ku barbaaray ee taacada ilaahay ku barbaaray maskaxdoodu marna isku daadan maysa baa ilaahay boqol hadduu gaadho ninka yaraanta ku soo bilaaba cibaadada boqol hadduu gaadho daadiisu caqligiisu waa taam boqol iyo konton hadduu gaadho caqligiisu waa taam laba boqol hadduu gaadho caqligiisu waa taam laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro 60 jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa way shanqari qalow birba ka dhashan qari ثم رددناه أسفل سافلين بأوتال لذلك أبين كورس قبل هالك إلا قبتها السنة بركة نينكي لبعض يركع عمركو كعي أي دبل جوكستي سي لبعض ركع وجرين صلاة دي فجر بلوغو إعدامي إنك أنا كور رمى أبين كعروسة الله سوهو يضمر كوير حرا أيو عروس كل رايك سدا يوليا وركوان خير كوغا الله بديه كاسو بحانا سوسا ما هدا ما شاء الله لما ركعود وهابين كي يودن صح نقاس تابعي صلاة بن أشيم رحمة الله عليه سدو ugu jiray ayaa salaadii fajr loogu eedaamay iyaduna waa gabadh caabidada bahayd oo saalixad oo sidiisa oo kala una at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ilaahay baa quraanka ku sheegay nin dhalinyaro ayaa nin sheekh u yimid oo ku yiri sheekh gabadh wanaagsan oo dabeecad fiican oo diin fiican ayaan rabaaye sideen ku helay sheekh buu ku yiri marka sheekhi baa ku yiri adigu haddaad noqotid adoon ilaahay oo wanaagsan adoonta ilaahay oo wanaagsan ilaahay baa kuu keenay adu wanaagsanow soo gabadh wanaagsan ma doonaysid ha gabadh diin leh addunya mataac wa khayru mataa'iha almar'atu الصالحة سو نبي قمودا نولش أدويد وابراحة ير راحة ير أدويدنا وحا هلبو نبي قولي نك إلهي وكوها جاجية قبر وناكسنو دين لي سو مدونا سيدنا نقول إنا نشا قبر وناكسن ها عد بعض وانا نقطع عدون إلهي وناكسن مرقان نك نين وناكسن بوها إلهي وحوك هنا قبر وناكسن وحابين كيدنا صلاة الليل كي يدنا أحانا أولن أذان كي فجر كان دعي وكبحي أقلك إلى المسجد صباح ذي بهوان كي بقوي مدع عروسدي بل ورن وانا اللي وقال نين عابد الصوفي وانو جيدين بضمر مركز زي كتري صلاة دي انقلي بكا بحني تري هذا كيف فجر كان سكدهين ليس السلامة صلاة دي انحرني لما دي ركعات هذا كيف فجر كان نقب بحيي تري سجى الله قبصة مركا أولي ورني كاجن خير الله كوسيه حال عروسة حالته ولا عتصده وقوق شيء وعوري إنك هيك قدر بويودي مركي أوريس حمام بعد جلسون ودقول ترادين بيها كلكم مايرو بيه كل لوكا قبوبا مكتب بيه كل بالله دقي بيه كل الأمر كان يسكت شباب بويودي نار تبان حسوس تبويودي عذر در عصبنا وادي يبسين وادي جلسين عذرنا وادي مرسين قل وهذه جلسين قبل قروح بدن ولا ديارين أديد أي تحت الله قل كأمر كان قالنا الجنة دي من حسوس تبودي
labadii rakaca markaan xidhay buu yidhi jannadii iyo naartii sidaan uga fikirayaa salaaddii fajar loogu eedaamay buu yidhi qulubteenna allah inoo nuuriyo salaaddii fajar baa loogu eedaamay tuula leyl wuxuu ku jiray laba rakacadood mar uu aakhirada mar uu janno xasuusto iyo mar uu naar xasuusto tafakur تفكروا في مخلوقات الله سمعين حديثك ولا تتفكروا في الخالق فتهلكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مخلوقات إلهي إيجا بالنبي يري بأن كفكر أبو النبي عليه الصلاة والسلام لكن إلهي قاتدي سها كفكرنا حتى إلهي كفكرتان وترادان إلهي إساقا يا سميي وهذا لك سمي سابو رسولك يري لأن الشيطان كأورنا كان يا أبو ري الله خلقي يا أبو ري الله kan kale ayaa abuuray allah marka u dambaysa shaydaanku wuxuu ku oranayaa ilaahayna isagana ayaa abuuray marka waxaa tirahdaan buu nabigu ilaahay ka magan gala shaydaanka waxaa tirahdaan laa ilaaha illa allah dhahada waxaad akhrista suuradda ikhlaaska akhrista lidaalika nabigu waa kii lahaa makhluuqaadka ilaahay ka fikira buu nabigu calayhi salaatu wasalaam laakiin ha ka fikirin ilaahay daatadiisa makhluuqa ilaahay ka fikir waa maxay kalixaadka loo dhammaystiray eeg deedna ilaahay xasuuso كلحاتك لغا ناقصي ايغ دنا الهي حسوسو كعد ايغ دنا الهي حسوسو كمدو ايغ دنا الهي حسوسو كفقيرك ايغ دنا الهي كو حسوسو كحنوسن ايغ دنا الهي كو حسوسو كوبدك لسيي ايغ دنا الهي كو حسوسو كبلا اوبدك لغا دغاي ايغ دنا الهي كو حسوسو خلقكن oo dhan waxaad ka dhaxarkaysaa ilaahay aayatiisa baad ka dhaxarkaysaa ilaahay aayatiisa كم من البشر با إلهي أبور أربع فقرايا أربع أغنيايا أربع عافمان لغو ديقي أربع حنون لغو ابتليي أربع فقر لغو امتحامي أربع أولاد الله هجاجيي أربع أولاد لغبيي أربع وحبرشد الله فري أربع وحبرشد لغو أتكيي أربع إسلام لماذا إلهي كو قال ديستي أرنا قال لماذا إلهي أقدره قال لما يكون من أيام قار عقلي با إلهي سي قار عقلي إلهي كان قاضي قار لحاتك الله دميستري قار لحاتك با لغا ناقصي ما أركان ما مغلان ما هلان قار بانا السعور وقلد أوجيفا قار با أقون كستيليين هذا فقرايا قار با أقون أن لهين هذا إلهي كدق أغنياء يمال قبينو magaaladeenan ma dadka aqoonta la ugu maal badan mise dadka aqoonta aan lahayn ya arkuwa ugu lacag badan ma jaamiciyiinta ugu lacag badan mise dadka aan jaamacadda soo dhigan halka jawaabade dadka waxba soo dhigan ba ugu dhaqaalo badan dhalinyaro ardayaan arkay oo markaa bur sheekh jaamacadayna waan dhammaynay shahaadooyinkii waan haysanaa shaqana ma hayno dhalinyaro aad u fikray buu ahaa wuxuu cilmigaaga la eegi maayo zamankana ciddaa tahay baa la isweydiiyaa buu marka horeysaba Soomaaliya la qabiil baa lagu halaagay markaasaan idhi diblomkan aqoonta aad baratay waa gooni arsaaqaduna gooni shaqo iskuma leh aqoonta baro lama diidan inaad wax barato inaad dhakhtar noqotaa lama diidayo inaad injineer noqotaa lama diidayo inaad maaragtaanay professor aad noqotaa lama diidayo inaad macaadinta arlada sida loola soo baxa aad noo barataa lama diidayo laakiin aqoontuna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqada marka ayaa bixiya waxbarashadaad baranaysid iyo arsaaqadaada cilaaqa kama dhaxaysa ogow habeenkii ilmaha yar 120 habeen uu jiray caloosha hooyadii uu marxaladaha uu marayay uu nabigu sheegay 40 ka hore buu nabigu waa nutfa 40 ka dhaxana buu nabigu waa calaqa waa xinjir yar oo dhiiga 40 ka ku xigana buu nabigu waa waslad yar oo hiliba dana 120 ka markuu jiro ayaa malaga loo soo dhiibaa ruuxda oo la yiraahdo ku afuuf
هبين كاسا أفر شيء المها على شكل الله قرأ أفر شيء أرزاق قديس هبين كاسا الله قرب والنبي يقول أنتوا عنايو أجشي سينا هبين كاسا الله قرب مال أنتوا لمن أيو لا بيدي دقمتكو هانينا هبين كاسا الله قرب أهل النار يا أهل الجنة متكو هنا هبين كاب الله قرب ورسولك يقول صلى الله عليه وسلم كوصل لي رسولك أرزاق دادي هبين كاب الله قرب أنت يتعين إلهي وكاغريي أنت تدويد كل ولا سابين كاب الله قري أنت تجري سنة ولا كاغريي بل كور رمسدين ولشو أي نقول لهيد هدي المكستو النور دلنا يا ونور دلنا لها أساق أو تاريخ أو لمن أيانا هلك أو قرنتها سين ولشو نقول لهيد بل كجوابه وضيبا أين كورن لها أدر ده مبروك وان بقلا إنا ويل أتكو عرته أدر ومبروكه لكن لو أكون لويل لباتك بيش الله لباتك يقول دي من يا بكو قرن بيقول معال السمين لا بالكبر ربا تاريخنا دمشق لقى غريب الرحمة طبعا ولو بقول سنة كدي هذا لقو قر لهين دمنا يسوع وهلك كذا قرنا لهين والولي والبهاري مرق بكسيد لهين لكن إلهي وكريم وكقريي سدو عجش هذا وقريي أيوة أرزاقنا إلهي كوكو قريي من مال أنت أقلتي إلى الضمان يسوي الدياد البيئة يباد يبريس يهلب يعاني يهواء كل حيد هذه اللي قصين لها الكيد دقل لها بالشيك إمسا بخار بدو بعن لها ما يلتين الله شو حركات الله شو واحد معاك يقدر كل هذا أجشنا والله قريي أرزاقنا والله قريي مركزا ولي بالله شيء والله قايري أرزاق دادي يقون تادسكم حدنا سيد النبي نبي قوي مديري لبننا ولا على عيا هايين من نفر السماء يقام بوها من المسجد النبي قو فدين جري ونبي علمك كرر بجري عليه الصلاة والسلام بركاكي حرف الله هاي مقالة وشقته جري أي النبي كد دعوي عليه الصلاة والسلام وحو كد دعوي ولكن رسول الله داني قوم بصوت تبع يقول يسقون هل كان مسكيت كأم بفرديا وحو النبي يقول جواب لعلك ترزق به بكيري لعلك ترزق به وحقيقة أو ضرب النبي يقول لي هي إن أرزاق قدب إلهي سقى كوكوسين يفلقيس توكلك تلا صار شد إلهي وتلا صارتي اعتكاف كان مسكيتك وكجرو برشد إلهي دين تي سو برنا يو تقوى مسكيتك كسو حريسي أيا الله يا با أرزاق دين إلهي كوكو فضيدني معناه قوي يا سلاس مركا أقول تمر بدينينو وان برانينا أقول إيوه الله برتنا مدينينو لكن وحنو باهنا قف وحبرنا يا إنه مركو الرسول ونقد قف إلهي سيقانا دكتور إلهي يقانا إنجنير إلهي يقانا تاجر إلهي يقانا مسؤول إلهي يقانا فقير إلهي يقانا عاقل إلهي يقانا وبس إلهي يقانا وأنا نقد قف إلهي يقانا نتاجر وقنع صداع أيا جماعة كو زيارة حفيز كيسي شاشد وين باهورت الله حفيز كست أو شغاليه سو أي فرديان كاميرا باودو سارون هالكا بو كلا سعودا سفي عن هذا الكاو دقيستا بركاسي جماعات دي كل كي حديثين بيكو دادين شاشدنا ادخل بمر ايغي سيدد dadkuna dhaxso socdaan wuxuu waa shaqaalihii baan halka shaqaalahaygii baan halka kala socdaa buu yiri oo gabdhaha ku jira maxad gabdhaha u khaawisi buu yiri markii qaar ku shalmadaaba ka dhacaysay wuxuu yiri si kale oo lagu aaminaa ma jirto kaameraga bay ka baqayaan dadna xoolahaygii iyo shaqadeedii bay nabad galaysay buu yiri ninka dadka muxuu ka aaminsan yahay marka uu shaqeynayo oo dhan waa tuug inay way idhacaan kaameraga waxaan u wada dul dhigay waa in xoolahaygu ay badbaadaan
ساسو كامل سنة سوما هنده محو كامل سنة واتوب قفل آميني كرامة جرتو إذا ما تصدق كوي دتك ما أنت وحلا آميني كرامة بجربوني كان ميلو ديبتمو كودا يا بوني طيب شقاله سيقف كمدا أيام مالين سجنا مال لقولا كل ما مركز لقوا يدي مالين بان سيرفيس كقوس ومرة يادو شقيسة شركة دا ما كشقيا إمسا سنة كشقيسة تدوبا سنة لعاد محوين نسيا أنت ما أنت شقة بلودي لا تدوبا سنة لعاد هذا ما أنت هم بحاوا أنت ونما بيريو سنة كستوحو النجوي هذا واني بيرن نومنا بيريو بلن كست سنة ولا بلن بنوق هذا بلن ما إلاليو وانا بين على بيدادين إياكي شقاله وحي سجى كأمن سيهين وبين على نكاس السجي إياك وحو كأمن سيهي وتوب حدنا ننكي مالين دمان أرجنا بل ورنا ما في عنتها شركة ديوي كعضوان حريبودي محادو حدي واحد وانا منا وين يقول خلاص ذاتك أمانة ما لبودي وعلى جاي أبى ذاتك وشقين يودين جامعة لك صوبحين السجن إنه جامعات صوبك تان لجاي أبى لكن أمانة قفك إنه يشو إنه بلن بوحية والنقضة إنه الرشاقة والنقضة إنه عدالة فلا والنقضة إنه طبيعة وناسنا والنقضة ما الدبلوم بيوبا هانتا مسد إيمان بيوبا هانتا بلي شيء إذا جوابه وفكون الرشاقة النقضة وبلن بوحية والنقضة بلن إلالية طبيعة وناسنا عدالة سماية إحسان سماية إنه النقضة ما الدبلوم بيوبا هي ما نقاشة ولي جامعة اللي يرينك كالصوبحة وحو نقول نين أمانة حافظة نين رشاقة نين بلنبوحية نين عدالة سماية ما نقاشين ما جرتها جامعة عينكاس ما جرتها ويجرتها وجامعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحجك الصعدة أيا وحي أركان نين مركا آدو سو صعدو فرسك آدو سو إرينايا marka Umar ibn Khattab baa eego wuxuu yiri ninkaasi kulay anaku noo socday joogsada buu uu joojiyay Umar ciidankii ninkii oo aad u daalan oo aad u naxsan baa marka Umar soo gaaray Umar hortiisu ku dhacay Umar baa marka ku yiri manin cadow ereenayaan oo cabsoonaya ayaa tahay oo ku magan gelinaa misanin dayn lagu leeyahay oo daynkii bixin kari waayay oo u baahan in la caawiyo ayaa tahay misanin naf bini aadana soo gooyay oo xaq darro ku soo dilay baa tahay markaasuu intaa midna ma yihi buu yidhi waxaan ka imid buu yidhi basra ayaan ka imid basra waa magaalo ku taal ciraaq abaa muusa al-ashcari baa halkaa amiir nooga ahaa haye halkaas anoo joogu dembi iga dhacay buu dembiga kaa dhacay muxuu yahay khamri baan cabbay buu yidhi لأن أبا موسى الأشعري بقى أنتوا قبتيبوا إيجا جريبوا حدكوا إمريي هاي تمهينا وإيجا حيري هاي فرسنا أنتوا إيجو قادموا مقالة دي بصري دحمر يو حويري نكا هلا عننا وهلا فريسننا وهلا صاحبنا وكبر هذا بودي وجهي يجيب يجيب مدوبي بودي برجع نفتي دي سد أحمد بيجو شيء كيسينا سمايو إما إن أبا موسى الأشعري إنتون قالوا أن قرتك قويو إما إن قالوا إنتون إسكابيرو وحي عبيان أن لعب وحي عني أن لعنو إياكنا أن كم النقضو إما إن أديك كوي ما دو ديك قبت الأمير كمؤمنين تعال مركع عمر بن الخطاب أيايد رضي الله عنه إن أديت مدي إلهي بكوا فجيبوا لي إن قال أوتكتها يلين إن أبا موسى الأشعري سجن إنتود الأرض متأد شانا هيلين مرة دانيك يسوق ديبوي أنا أقول أنت هذا حتى شقك قبل يا أبو هوش وقبل ورقد بقري ورقد نكر عمر وديبن السجيب ورقد وديب السجيب كله أمير المؤمنين عمر اكتسان كسعداء وكسو سلام عليه
waxaad ku tidhaahdaa haddaad amiirkaagii aan ahay warqadday ku qoran tahay oo xaqa aan kugu leeyahay abaa muusa alashcari oo aad qadarinaysid warqadda ninkaa uu kuu keenay dhegayso qaabil buu ku soo amray uu soo noqday ninkii cumar weliba ninka ma sii dayn faras buu siiyey lacag buu siiyey dhar buu siiyey kolkuu muddo welibana uu hayey ayuu yidhi haddaba imanka soco u tag basra ayuu markaa ugu yimid abaa muusa alashcari oo khudbadaynaya markaasuu amiirkii muuminiinta cumar baa i soo diray ajiib istaagay uu ku soo salaamayey warqadaana uu soo dhiibay akhrisa buu ka yidhi warqadii buu akhristay ninka faraskaaga saar magaaladii aad la dhex martay marka hore la dhex mar waxaad ku tidhaahdaa la fadhiista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin uu toobad keenay toobaddu addoonka ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horeen hadal iga dhaco o dhanna waan ka noqday ee walaalkiin ma aragtaan cafiyo anna waan cafiye dheh abaa muusa alashcariy radia allaahu canhu sidii amiirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka ugu yimid uu madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray magaaladii uu sidaa usoo dhex mariyey waa walaalkiin uu toobad keenay cumar bnu khadaab buu u tegey cumar buu fariintaa inooga soo qaaday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta oo la noolaada waa taa dadnimadu mas-uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya professor ilaahay garanaya maalqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya abaa hurayra radia allaahu canhu gaajo daraaddeed buu masjidka nebiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nebigu uu ka baxayuu ku dhici jiray ninka reer miiga ee magaalada madiine ku cusub ayaa intuu isku dultaaga odhan jiray war maad waalan tahay meesha ka kax markaabuu odhan jiray ma waali abaa hurayra wuxuu leey waali maa waxaan la jiifee gaajaan la jiifaa buu yidhi cumar baa ii yimiday markaasaan cumar ku yidhi aayadda qur-aanka halkaa aayadda qur-aanka halkay ku soo degtay cumarow markaasuu abaa hurayra wuxuu yidhi marka cumar aayadda qur-aanka aan weydiinayey garasho la-aanigama yahayn waxay iga ahayd cumar wejigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wejigaaga ku taalla intuu eego ha garto oo ha ku yidhaahdo abaa hurayra gaajaa ku hayse kaale ila soo xeraado ila soo cashee imuu fahmina aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi yaalka ku soo degtay haddana abubakar baa yimid abubakar waadna bal aayaddaa iiga jawaab halkay ku soo degtay abubakarna ima garanoo ima fahmina aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi waa abaa hurayra baahi baa haysa 3 maalmood iyo 3 habeen afkiisa cunto ma gelin haddana abibakar iyo cumar inuu baahi u sheegta buu ayuu ka qarsanaya inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtaray moogta soo maha inte soo maha xanuunka waaga dhawata la buunbuuninaya adduunka la sheegaaye mashruuc gaalow inakaba naguma socdoba xanuunkaas naguma socdo cuquubo meel kale ku socota haddaad u yeerata ka waran adigu halkii beryihii hore dadku odhan jireen balaayo markay maqlaan meleblayo balaaya ku dhacday ayaa laga alla beri jiro la odhan jiray balaayo baydh iminkana maanta maxaa la leeyahay balaayo soo baydh xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay intaabaa ka bogsatay intaabaa u dhimatay maxaad ka sheegi muminku balaayo ma sheego muminku nicmadda ilaahay buu ka sheekeeyaa wa amaa binicmati rabbika faxadith nicamta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayo leh ilaahay baa waxa uu dhibaato igu sameeyey ayaa iga qabta ayaa ilaahay kaa qaban war mahayad baa ilaahay kaa qaban bal sheeg muminku balaayada ma sheego abaa hurayra gaajadiisii cumar uma sheegin abibakarna uma sheegin uu qarsanayey laakiin wuxuu bal siiro farsamo leh ayuu wejigaaga un bal kolkay eegaan ha kaa dareemaan oo ha ku yidhaahdaan abaa hurayrow marka horeba ahlu sufaad ahayde oo magaalada madiine qareen iyo qarabo kumaad lahayne waad gaajootay ibna mari ha ku yidhaahdaan iyo kiina may fahmin
ولكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركو النبي يقول الصوبة حيبا هل كاسو النبي كفهمي هل كابو كفهمي يا أبا هريرة قال عاواني إلى سوء عشاء أبو كيدي قال إلى سوء عشاء كوب عانو النبي يقول مدرير كيسي كوب عانا هيا الله كوب عانا كويا لنبي الله يا أبا هريرة مسكيت يكون نقو أهل الصفين يودن النقو غير عاو عانا هنا العباني وكوب عانا أبا هريرة النبي محمد هذا الكيس ما أوران كرو لكن يبدأ أن كيريبو يري كوب كان عاناها أدقوم وكوكو في عناية ميها اللقول دي بقى حكو عبادة ستة الله بها بياني أهل الصفون والرقات قرن يسيدي مسكيت كده قنايو أياك اللفت قوكم مع الميد الوحمعون ده كل النبي كل كويرو أي نادان فريستان أدو كورنا أبا هريرة عاناها قادو سيسي كوه الرئيال لصيه همين لكن النبي محمد هذا الكيس ما يورانين ويري أقل مرقي فريستان سدي وكب ملايين يمشى ودعدي يا أبا هريرة أبو النبي وركوبك عنها قاد نكا وجوه الرجال أديب حكنا قادم بور إلا يسوي كوسع عليه موياني وكوب حنا رجل الله يرنا ورجيه هو أهل الصفة كي الريع مركز أديب وان إيه وعنه هالكوجي جو كي كلام أديب هالكوجي كي سجاشن تضباطن نسكده مركز النبي يقول يا أبا هريرة يا رئيسك يا رسول الله أديك يعني قاعد فليسو أدو عبد وان عبد كل علي هدم وان عبد كل علي إلى أن إراد إله حق كل صوص صاري بان كل دارته عنها مال على شيء أي كم مرانو بنان هدي تليقوم هذه من يديبي لأن مركز أنا هم بدي بالنبي قاتي هم بدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وحن كودا فقراء دودو باهي ويقبين لكن باهي دودو مشي جنين باهي دودو إيمان كدبولاي إيمان كدبولاي والله وحنو باهنا إيمان تا أمة إن إيمان كالله دسو أمة إن إله الله حرو أمة إن آخرة الله جديو أمة إن دين تودا معانك دين تو أيلا باي لا شيء تان ما أنت باهنا هي واتاس سعاد من نقولنا مثل عباد من نقولنا بل كلا دورته يا وديار النقطة داعي عابدة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل دعا إلى الله دعا به الرئيسة قم فأنذر به الرئيسة وعمل صالحا ولا دنبيسي آذان كاه الرئية صلاة دا كحكتا دعوة دا الرئيسة عمل كوناكسن با كحكا نبي با دونك إيمانيا رسالة با الله سودي بيا دعوة بو بلابيا دعوة مركو بلابو أيها أمدو دين توصل جيسانيسا مركزها مجتمع نلوشو دين كم وغنيسا لذلك دعوة أساس كدين تين الإسلام كويان دعوة الله هلو أيها أمدو دين تجعلان لأن دين تين برتان وأي كو عمل فلان وأي كو دغمان مركزها مركز أمدو أي دين تمعان كيغا دمين إن شاء الله هذا دين تدال كيغا وقتينا مالكينا دقالهنا عقلينا عمرينا إن الدين تقشنا صوديار منهن والله دعوة ونحريس دعوة والرحمة أمده مساجد الله يرى والرحمة أمده قرآن الله برا والرحمة أمده علمك الله برا والرحمة أمده مساجد الله يرى والرحمة أمده إله حقيس الله يرى وضدك السدودي ورهدي مقالة أردن وضا فوقك لغا وضا ديقو oo wadooyinka oo dhan la nooga dhigo muraayado oo wadanka oo dhan qof aan shaqeyn la helo oo dadka oo dhan wada shaqeeyaan laakiin dadkii ay been ku macaamaloodaan oo khiyaanadii ay badato oo amaanadii ay yaraato oo qiibadii ay badato oo dulmigii uu bato oo zinadii ay badato oo fisqigii uu bato oo fujuurkii uu bato maan hore marnay mise waan dib u dhacnay bal iga jawaaba daarihii baan dhisnay wadooyinkii baan dhisnay mashaariic horumarneed baan samaynay jaamacadihii baa batay khariijiintii baa badatay jaamiciyiintii baa batay hoteeladii baa batay warshadihii baa batay laakiin dadkii amaana male run sheeg maaha amaana male run ma sheegayaan balan ma ilaalinayaan cadaalad ma samaynayaan ixsaan ma samaynayaan isma jeclo isku damqani maayaan maan horumarnay mise waan hoos u dhacnay iliga jawaaba
oo Suudaan idan hadday aqaladeeni baadiyaha ay yihiin oo ari iyo geel aan dhaqanayno oo beeraha falanayno laakiin dadku ay yihiin dad Ilaahay yaqaana dad amaano leh dad khayr badan dad run sheegayaala dad cadaalada ilaalinaya dad isku naxariisanaya dad isku damqanaya dad xumaanta ka dhiirinaya dad wanaaga jecel oo xumaanta necab hadday yihiin waan horumarnay ogaada horumarku maaha dhiska horumarku waa bini aadamka horumar weeyaan diintu markaa dadkay dhisaysaa daacigu wuxuu ka shaqaynayaa dib u dhiskii dadka ninka madaxa marka doorasho soo dhawaato madaxdu marka doorashada galayaan nin kastoo siyaasi wuxuu yiraahdaa wadooyinkan sameynaya mashaariic horumarneed baan sameynaya tacliintan bilaash ka dhigaya tacliintan kor u qaadaya dhakhtarradan badinaya caafimaadkan bilaash ka dhigaya warshado ayaa sameynaya arnin madaxa oo oran kara dadkan hagaajinaya ma maqasheen idiga jawaaba arma maqasheen nin madaxweynaha oo yiri dadka siday ku hagaagi lahaayeen baan ka shaqeynaya ma dhacda inuu yiraahdo may waayo fannigan dadka lagu hagaajinayo fanniga madaxda maaha waa fanniga culimada weeyaan waa fanniga ducaada weeyaan waana taan u baahanahay maanta waa taan laanahay weeyaan halka xadiis baan ku soo khatamaya ala ukhbirukum bi khayrikum min sharrikum qalu bala ya rasul allah qala khayrukum من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ما ينيش قابو النبي يقولي كين ينيقو خير بدن إيه كين ينيقو شر بدن مركز الصحابة دولادن مركابو النبي يقول كين ينيقو خير بدن وانك خير كيسال الرجيو شر كيسان أمد وأيكن نبض كشو خير كيسال خير كيسال الرجية ilmahaagii baa maalan ilmo yar wax ku dhiftay markaasaa tiri warniyo ilmahaygii baa maanta ilmo yaroo kala cawiray oo ilmaha ayaa dhalay odaygii hebel baa dhalay markaas odayga ahaa war odaygaas waa oday helul khayra waa oday miskiina waa oday macquul ah waa oday ixsaan badan marna isfahmi waaye maysaan waa nin la isfahmo waa nin cafis badan anigay beri arrinna dhex marto arintii si khayr loo wanaagsan buu ku dhameeyay warniga nin shar laga filanaya ma ahine khayr baa laga filan inoo geeya kaasay nigu khayr badan buu nabigu yiri ka kalena waa ka khayrkiisa aanan la rajayn ma ilmahaagiiba ilmihiisa wax gaadhsiiyay ilaahay baad leedahay kaabe arrin ka gashay miyaha ilaahay waxa ka siiyo ilaahay baad adiguna leedahay war ii raac oo bal ninkana dhexdhexaadi leesma fahma bakaas waa nin tiisa una la quman tahay garna ma gasho garna kama baxdo sharkiisana ilaahay baan ka magan galay waa midaal yani xadiiskaas eeg waa xadiis xasan ah dadka khayrka badan la nabigu sidaas uu sheegay iyo dadka sharka badan la marka haddaan diinta ka shaqeyno dadka khayrka badan leh ee khayrka jecel ee ihsaanka badan ee dulqaadka badan ee wanaaga jecel ee afiska badan ayaa mujtamaceena ku badanaya haddaan diinta iyo dacwadda ka shaqeyni weyno iimaanka hoos u dhaadhacaya taqwada yaraan alla ka baqa yaraan dadna markaa waxa kor maraya dadkii khayrka badnaa waxa ka badanaya dadkee kafada miisaanka taariku salaaga xagan hadii la saaro maanta iyo dadka salaada ilaaliya iyo ma badan war kafada tay culus taariku salaaga cuslaanaya sooma kafada khayr dadka khayrka badan leh iyo dadka sharka badan la maanta mujtamaceena ayaa ku badan meel walba caalamka waxa maxaa keenay waa ka shaqay la'aanta aan diinta ka shaqeyni weynay ayaa dadnimadii hoos u dhacaysa hoos adduunyadiina kor baa u socotaa maanta marka ilaahay kuwa diinta ilaahay u dadaala ee barta ee ku camal fala ee ka shaqeeya ee ilaahay khayr ugu khatimo allah inaga yeelo soo diyaar ma nihin insha Allah dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto amni iimaanka Allah inoo ziyaadiyo
dad badan oo walaalaheena muslimiin ayaa ducadoon ah oo muraad leh mid walba muraadkiisa oo macsiyo lahayn ilaahay gacanta midig ha ka siiyo dad badan baa xanuun ka cabanayo meel walba nooga soo duceeya leh wixii xanuunsan caafimaad sariic Allah ha siiyo wixii kurbasana kurbada Allah ka faydo amni iimaankan Allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meel joogan muwaafiqiin midnimada Allah ha siiyo sallallahu ala sayyidina Muhammad